inaan caruura oo iskuul imtixaan laga yeedhinayay ayaa hooyadii soo kaxaysay islaan kaloo ay jaar ahaayeenna inankeedii ayay soo kaxaysay isku kursi bay fadhiyaan labada islaamood labadii inan mid ahaan akhlaaqdii raqam waaxid buu noqday aqoontii raqam waaxid buu noqday nadaafadii raqam waaxid buu noqday intaasoo jaa'isadood baa mar kaliya looga yeedhiyey meeshii tii inankee kala dhashay ay matal allah oo wax walba ma inankaagumaa la siinayaa wax walba ma inankaagumaa la siinayaa mar allaali markii xafladiisaa looga soo baxay isla daqiiqadii laga soo baxay inankii gaadhaa kala gooyey subxaan allah markiiba inankii gaadhaa kala gooyey marka waxaa muhiima inaan fahamno sirta nolosha intaynu arkayna iyo intaynaan arkayn baa badan marka inaan caruurta lagu gooli baadhin caruurta waxaa nabigeenu leeyahay calayhi salaatu wasalaam istaciinuu bixawaa'ijikum alkitmaan faina likulli nicmatin maxsuud waa xadiid uu albaani saxiix yeelayo asalkiina wixii ilaahay uu idin siiyo dheeraad ah asturaad ku darsada war wixiina qarsada oo arkay maqlay arkay baa la yidhi iqariyay baa ka dambayn haddaad arkayda qarto iqariyay baa ka dambaynaysa nicmo kasta oo ilaahay bixiyo maxsuud baa jira wax allaali wuxuu ka dheefayana aanad garanayn wax allaali wuxuu ga faa'iidaa ma garanayo haddana wuxuu rabaa un qofkaa nicmadu inay ka suusho markaa nebigu uu la teliyay calayhi salaatu wasalaam war xaajooyinkiina sir ku darsada nimaan sir lahaynin nolol male istaciinuu bixawaa'ijikum alkitmaan biqadaa'i xawaa'ijikum alkitmaan markaad hawl gudanaysaan xaajooyinkiina asturta sababtoo ah arrin kastoo aad wanaagsan oo aad ku tallaabsanayso qof unbaa ku xaasidi kara qof unbaa xaasid kugu ah marka noloshan wajacalnaa bacdukum libacdin fitna atasbiruuna wa kaana rabbuka basiira marka waxaynu u baahannahay bini aadmiga muslimka ahi inuu asraarta qur'aanka iyo asraarta xadiidka uu ka faa'iidaysto oo noloshiisa uu ku bineeyo qur'aanka iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam marka siyaabaha lagu ogaan karo qofkii meesha looga yimi waa taa kow in la helo ruux yu-anayay oo hadal hayay oo aan ducana raacinin ثاني شيء waxaa suurtagal ah qofkan la ileeyay in ilaahay uu manaanba ku tuso halkay dhibaatadu kaga timi almanaam qof ilaahay uu doonayo inuu daweeyo oo inay manaam uu ugu yimaado oo ilaahay u bayaamiyo sidii nabiyullaahi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam markii la sixray ilaahay labada malag ugu soo diray ee midna madaxiisa fadhiistay midna mijihiisa fadhiistay ay isweydiiyeen oo ninkan maxaa ku dhacay ninkan waa la dabiibay oo yaa dabiibay ninka yahuudiga ee la yidhaha hebel waxaanu kaga hadli doonaa baabu sixirka markaynu ka hadlayno madbuub baa la yidhaha yani hadalkaa la wanaajisanayaa oo halkay odhan lahaayeen yani waa mariid halkay ka yidhahdaanba waxay dhaha waa madbuub waxay dhaha carabkana qalina oo qof la dabeeyey bay ka dhigan tahay iyagoo ujeeda waa qof buka qofka indhaha la maxay dhaha carabta ma taqaan basiir bay yidhahdaan basiir waxaynu u naqaanaa qofka indhaha wax ka arkaya laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu jeclaa alfaal in hadalka fiican carabka la baro waayo waxaa laga yaabaa kelmaddaada waqti samadu furan tahay inay gasho oo ilaahay ku aqbalo markaasay odhanayaan hebel waa basiir iyagoo ka wada hebel wuu indhala yahay lacala allah in ilaahay kelmaddaa u xambaaro dabadeedna ilaahay uu basiir ka dhigo inana waynu isku xikaayna hebel laangare iyo hebel cawar iyo hebel indhoole iyo hebel caynka inta labaynu inagu sumadii sooga dhiganaa soomaalida caado xun ay iguma caydeen marka inta labaynu inagu doonanaayo bini aadmigu waa laba noocunoo midna waa diqsiga oo kale midna waa shinnida oo kale shinnidu ubaxa meesha udgoon bay geedka ka raadsataa duqsiguna meesha nabarka ahee malaxda leh ayuu raadsadaa sidaynu u badannahay hadal balaayo afka lagama dhowro soomaali markaynu nahay
halka meesha nabar kale intuu baynu eeganaa inta ayaynu eeganaa inta qofku nool yahay inaan samihiisa ka faa'iideysano lagama yaabo wuxuu wanaag leeyahay inaan ka faa'iideysano lagama yaabo maalinta uu dhinto ayaa nin waliba oranay Allah arintu noolaamaynu ka faa'iideysano dadka kale ninkoodii wax tara waa tixgeliyay idinkuna aqliga taamidka waa ku tumataan oo tartar baa ka dhaaftaan ninkii toos idin wada marka dabeecadda Soomaalida ba iska tahay inay xabaal ammaan yihiin inta uu nool yahay in lagu qiro waa habeenkii xalay tagay waa lagu yu'anayaa ma isaga halba caynkan baa lagu oran marka qofka waxa masalada labaad haddaan ku soo noqdo haddii ilaahay manaan ku tuso waxa laga yaabaa qofkii in la garto waxa kale oo iyana calaamad ah qofkii ishu kaaga dhacday mar allaaliya markaad aragto ayuunbaa cabsi sababteeda aanad garanayn iyo diiqadunbaa marka lagu gelinaya mar allaaliya markaad aragto unbaad gariiraysaa sida wuxuu sirkaa hayo ama uu ku tooganayo ama uu dhibaato ku sheegayo waa diiqadoon uuna markaasaad ka cabsanaysaa war qofka maxaad kaga cabsanaysaa haddaad isweydiisana ma macnayn karaysid ruuxan waad mar allaale markaad aragto xaq unbaa meel ku odhanaysa mararka qaarkood waxaa dhici kara qofka haddaad jeceshahay caashaqa lamida oo marka qofka aad jeceshahay caashaqu ku hayo waliba dhalinyarada gabadhaad jecleed markaad aragto waad naxaysaa erayna ma odhan kartid taa macnaheedu maaha ilbay way ku ilaysay waa marad nafsi weeye waa marad nafsi oo qofku hadduu jacaylku ku soo horeeyo intaanay qofka aanay wada hadal qofka intaanay isbaran hadduu jacaylku ku soo horeeyo lama hadli karo mar allaaliya markuu halkaa ka soo baxo ayuu dariiqa maanta oo dhan dariiqu taagnaanay soo marayso mar allaaliya markaa halkaa ka soo baxdo ayuu wada kala maraya ma hadli karo ninku hadduu ku yidhaa waxbaan caashaqay waa bilaash caashaqasaas caashaqa dhabtaa lama sheegi karo qofku wuu la qajilaa qofka uu caashaqayna uma sheegan karo mar allaaliya marka uu ka tago inbuu oray bi waa naga dabagey ka daba tegaya xataa waxaan arki jiray qaar mar allaaliya markay gurigooda galaan habluhu ay albaabka soo xidhatay albaabka dhundhunkada xaqiiqatan marka taasi way dhacdaa marka waxaan ka wadahaa qof kastoo aad ka naxdo macnaheedu ma ahan inuu ku cawriyay maaha macnihiisu asbaab kale oo naxdinta keeni kartaa way jirtaa waayahay qodobka afraad ee qofka bini'aadmiga ciddii cawriday lagu soo saari karaa waxa weeye culimada xaqaaniyiinta ee qur-aanka wax ku dawaysay in loo geeyo dabadeedna waxaa laga yaabaa inay aahaar meesha ay ka muuqdaan aahaartu 50% bay noqon kartaa deedna qofkii sidii aan kuu soo sheegay ayaa looga raadsanayaa wixii maxaan ku idhaahdaa raadadkiisa ah isagoon ku agayn inaad ka soo qaado hal su'aal baan ku khatimayaa casharkeenna maanta waxa weeye qofkan cawridu ka dhacday Soomaalidu waxay tidhaahdaa waa laga dhiijiyaa ma maqasheen qofka cawridu ka dhacday inta loo tago hal dakhra bay yiraahdaan haddaad qofkii cawridu kaaga dhacday aad dakharto markaa qofkii cawridu ku dhacday wuu bogsanayaa bay yiraahdaan masaladaasina waa masalo khayaal ah wax ka jiraana xaqiiqatan ma jirto waayo ilaahay baa tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay idfac billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wama yulaqaha illa alladhina sabaru wama yulaqaha illa dhu hadhin 'azim war qofkan maxaad ku dakhartay way cawriyay teesad ku cadaynaysa ma jin baa marxaati ku noqonaya jin marxaati ma galo waxaad nabad ku weyday colaad ku helimays qofkii ma hubtid 100% ninku oran kara qofkan iishii kaaga dhacday ma jiro waa uun malamale xal u baa la raadinayaa marka halkii xal ay raadinayeen aadna mashkilad kala sii abuurto oo hadhow dacwad iyo dood iyo maxkamad hadana aad sii gasho waa mashaakil falsafada qofkii wax ileeyay baa la dakhraana wax allaaliye wax natiijo faa'iido ka dhalanaysa haba yaraatee ma jirto tilmaantii ilaahay bixiyana way khilaafsan tahay qofku hadii uu dhibaato kaaga timaado adigu ihsaan samee idfac billati hiya ahsan adigu wanaag ugu bedel
waxaa laga yaabaa wanaaga aad ugu bedeshay laftiisu inuu wixii dib u nuugo ayaa suurtagal ah